dhammaan waxaan salaamayaa marti sharafta halkan ka soo qayb gashay xisbiga wadani khaasatan dadka gobolada ka yimi Maalmo iyo Tobori iyo Westeros iyo magaalooyinka kaleba hadda aanu kelmadii kale wadan waxa weeyaan maanta wad Soomaaliland marxalad adag bay maraysaa xisbiga wadanina wuxuu baahan yahay maanta inuu awoodiisa kordhiyo dadaalka la badiyo si uu uga baxo dhibaatooyinka jira Soomaaliland ugu horseedi lahaa dimuqraasiyad iyo horumar waxaan leeyahay halkan Soomaaliland maanta uma baahna kaligi taliye Soomaaliland waxay horumar ku gaadhay wada tashiga isfahamka marka waxaan leenahay muusow dub uga noqo qaladaadka iyo jidka qaladka la socoto Soomaaliland khatar bay ku sugan tahay waa inaan dub ugu noqonaa waxyaabihii horumarkeena gaarsiiyay iyo heerkan taaganahay maanta taasoo ah in isfaham dulqaad iyo kala dambeyn haddii taas iman weydo waxay Soomaaliland inay burbur gasho ayay noqonaysaa waanan ogno diktatoriyadii siyaad barre waa la arkay wixii laga soo maray dadka reer Soomaaliland ma ogolaan doonaan in diktator dambe ay timaado waxaan rabnaa in doorashadii baarlamaanka la qabto tii degmada la qabto in xisbiga wadanina inuu diyaar garoobo mowqifkiisa tuso oo si adag uga hadlo arinta taasna waxaan filayaa inay iman doonto marka waa inaan dadaalka kordhinaa haddaynu iswarinahay iyo adduunkaba dadka taageerayaasha xisbiga ama iyo cidba dadka dimuqraasiyadda jecel in ay sidii u badbaadin lahayn dimuqraasiyadda Soomaaliland looga shaqayn lahaa maanta dhalinyarada dumarka odayaasha cid kasta loo baahan yahay in badbaadadii Soomaaliland la galo wadanina waxa weyn xisbiga ugu horeeya ee jecel inuu badbaadiyo dimuqraasiyadda Soomaaliya taasna waxa tusaale ah doorashadii madaxweynaha iyagoo arkay inuu qaladaad dhacay aniguna goobjoog baaha ay ka tanaasuleen oo yiraahdeen Soomaaliland baa ka weyn inuu Cabdiraxmaan Ciro gudoomiye noqdo marka waxaan dadka idin talinayaa dadaal fiican aan gacmaha isqabsano qof walba inuu halkiisa dadaal ka sameeyo adduunyahayna inaan la socodsiino arrimaha Soomaaliland ka socda sida la socotaan imika shalay u dambeysay maqaal weyn baa joornaalada sawir ka soo qoran ay leeyihiin حتى هذه لبدي ودين الصدايي Soomaaliland حقي مردون تجتكي مردون تا صوت أو أركان تكسويرن كشعبك ورجسية يدول تسويرن با إن Soomaaliland خطر كسوغن تاي تصالحان با ومركوجو هريسي عن أرجنو إن دول تسويرن مقال كسوقرتو كسور كذا Soomaaliland ما يدهروا ما يدهين تحسنا وحكيمي تذكرنا وداني سوين شوقات ذلك نص ساميني يجو أركي إن مامل Soomaaliland كتير حتى وياهي مامل قلدان صوبت الدوينه وحي أركان إن أيجليين أود بدن لعق بدن غالب بدن إن أو هرمر Soomaaliland قادو ديمقراطية السيبادو تي أي إلا شلة الصورات لقيش غنية أركين إني بربوريسو هذا ما أنت أدون كقدمي وحي رأسيين حسبية معارضك وحنا كدن يهين يجو السودان أمريكا إنجليز سويدن فرنسيس شرمال دنمارك جيس إن إجد أورك أفريقيا أورك وين أفريقيا مديهين عد ولا بعد بكسر جسدي بالمركا محي أقبتين ودكني مركا وحن لا هاي إن الحمد لله هكذا سكونيمي تذكر كان كردينو مرتي هنولا وداني هنولا Soomaaliland وأنا مهتمين